gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa maanta si rasmi ah xilkii ugu wareejiyay maayarka cusub ee degmada Dharkeengeeye dhawaan loo soo magacaabay oo xilka maayarnimada uu sii hayay barsaab ku-xigeenka gobolka Sool. ugu horreynna waxaa munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Sool halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool oo ka warbixiyay waxyaabaha looga baahan yahay maayarka cusub. maanta ay taariikhdu bishu tahay 30 waxaan ku wareejinayaa Sakariya Cabdilaahi Xirsi gaarigii degmada Dharkeengeeye shaabadii iyo xafiiskii intaasaan ku wareejinayaa hadii la haydmo marka Sakariya wada shaqayn wanaagsan iyo soo dhaweyn wanaagsan. waxasaguna halkaasi ka hadlay maayarka cusub ee degmada Dharkeengeeye ee gobolka Sool Mudane Sakariya Cabdilaahi Xirsi oo sheegay inuu wax badan ka qaban doono dhanka horumarka iyo nabadgelyada deegaankaasi degmada Dharkeengeeye iyo guud ahaan waad mahadsantihiin xilka aad ugu wareejiseen shabada iyo gaariga degmada ay leedahay waan kala wareegay waxaan rajeynayaa inaan si hufan inaan waajibkay u guto idinkuna mar walba garab iyo gaashaanba waan idinkaga baahanahay wada shaqayn waxaan soo dhaweynayaa. ugu dambeyntiina gudoomiyaha gobolka Sool Mudane Cabdiqani Maxamuud Jiire ayaa si rasmi ah xilkii ugu kala wareejiyay maayarkii hore oo haatan ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool iyo waliba maayarka cusub ee dhawaan loo soo magacaabay Sakariya Cabdilaahi Xirsi isagoo ku booriyay maayarka cusub in maadaama degmada Dharkeengeeye ay tahay degmo ka fog deegaanka gobolka Sool kuna taala xuduudka inuu dardargeliyo dhanka nabadgelyada iyo horumarka iyo wada noolaanshaha dadka wada deegaankaasi. waa Barkhad Cumar Axmed warbaahinta dowladda Jamhuuriyadda Somaliland Laascanood.